وإذن سلام صاحب يا الملبو جوكتان هل كان واشف كده صد جروبيس ميعي وعبي داير waxaan jeclahay muuqaalkan inaan ku soo gudbiyo lix sir oo ku jirta YouTube-ka taasoo maskaxdaada ka waali doonta boom waan ogahay qaarkiin saacadan waxay isleeyihiin maxaa waa sirko ka sheekeynaa cabida anu wax walba YouTube ku saabsan waaqaanay stop jooji halkaas ku jooji maxaa yeelay waxyaabaha romantic inay soo gudbiyo sirarkan waa kuwa cajiib ah xaqiiqdii aan la yaabi doontid waxaad ka aaminsantahay maana wax kale ay ku noqon doonaan haddaba si aad uga faa'iidaysato sirarkan muuqaalka la soco taleefankaada hore ka soo qaado aniga waa diyaar soo diyaar kuma marka okay haddaba ma ogtahay haddii aad muuqaalka daawanaysid qaybtiisa bixida aad loo marreexid inuu dib kugu celinayo 30 sekin wixii aad soo dhaaftay ama intii aad soo daabatay sidoo kale haddii aad qaybta midigta laba mar aad taawatidna inuu ka gudbi doono 30 sekin muuqaalka daawanaysay taasi waxay ka caawinaysaa markii aad daawanayso muuqaal kadibna ku dhaafay qayb kamid ah muuqaalka daawanaysid aduu baanta dib inaad ugu ceshitid kaliya laba mar ayaa waxaad riixaysaa qaybta bidixda kadibna wax yar ayuu 30 sekin ayuu dib kugu celi doonaa sidaas la mid ah ayaa waxa laba mar u taaban kartaa qaybta midigta si aad ugu gudubtid qayb aadan ka helin muuqaalka صدقا سكين ومد باي ديفولت او هيستو برنامجka laakiin hadii aad u baahan tahay inaad badashid kaliya waxa sameynaysaa waxa tagaysaa qaybta geeska saddexda dhibcood kadibna waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay general hadii aad wax yar qaybtan hoos u socotid waxaad arkaysaa halka ay ku qoran tahay double tap to seek oo macnaheedu tahay markii laba double aad taabatid waxa ku soo baxaya halkaas ayaa waxa ka dooran kartaa 40 second 10 second waxa u baahan tahay tani waa mid kale oo kamid ah sararka raaw in amaantii isu gudbiyo hadii aad tahay dadka laptopyada ka fiirsada muuqaalada YouTube-ka waxa jira numbers aad u muhiim ah tusaale ahaan hadii aad taabatid number 5 wuxuu qaybta midigta ku wada doonaa 100% muuqaalka daawanaysa daqiiqadiisa sidoo kale hadii number 4 aad taabatid wuxuu 40% oo ku wada doonaa qaybta bidixda muuqaalka daawanaysa daqiiqadiisa taasi waxay ka saacidaysaa in qayb aad u weyn aad ka gudubtid muuqaalka daawanaysid sidoo kale number walba oo meesha kamid ah taaban kartaa hadii aad 7 ka taabatid 70% muuqaalkaada ayuu dhinaca midigta wada doonaa sidoo kale hadii number 3 aad taabatid 30% qaybta bidixda ayuu hoos u wada doonaa ma jeceshahay commentiyada ku qorayso YouTube-ka inay noqdaan kuwa ka duwan dadka kale waxyaabo ay soo qorayaan commentiyadooda hadii aad jeceshahay in commentigaada uu helo like aad u fara badan ama dadka aad ula yaabaan waxaad bedeli kartaa farta YouTube-ka aad ku soo qoraysid qoraalka ah waxa jira barnaamij loo yaqaan ama website loo yaqaan Linko-Jam oo ku bedeli kara fartaada kaliya waxaad Google ku qortaa Linko-Jam kadibna website-ka ugu horeeya ku soo baxa waa website-ka aan u baahanahay in isticmaalno oo Linko-Jam ah ku dhufo kaliya sidoo ayaa soo bixi doona qaybta textiga ayaa halkaas waxa ku qori doontaa wax walba oo u baahan tahay salaha aniga qoraal ayaan iskaga qorayaa kadibna waxa halka inoo soo bixi doona qoraal aad u fara badan oo kala duwan maxaa yeelay hadii cabay aad ku qorna cabay oo farar kala duwan ah ayaa halkan ka soo baxay soo hadda kan oo kale ayaan ka helnay marka kan ayaan ku biyeysanaynaa kadibna waxaan aadaynaa muuqaal kamid ah muuqaalada YouTube-ka kadibna comment ayaan ku qoraynaa saa aragtid commentiga waa comment aad u qurux badan xaqiiqadii oo ka soocan dad kale wixii qorayaan oo qoraalka fontiga caadiga ah waa barnaamij cajiib ah xaqiiqadii maxaa diiday markii inaad tijaabisid okay marar qaar waxa dhacda adigoo muuqaal daawanaysid ayaa qayb kamid ah aad iyo aad uga heshay waxaana jecelaysatay in qaybkaasi aad la wadaagtid saaxiibkaaga ama qof aad rabtid in uu halkaas ka faa'iideysto marka hadii aad linkiga koobiyesid oo u dirtid saaxiibkaaga waxa laga yaabaa muuqaalka dhan inuu u furmo dib u soo bilaamo anna wax u baahneed muuqaalka maadaama waxyaabo aad u far badan ka hadlayo qaybta kaliya oo saaxiibka rabtid inaad la wadaagtid aysan dhicin si markaa arintaas ugu faa'iideysid oo qofka markaa link u dirto link ku dhufto oo uga bilaabo qaybtii adiga u idmatay taa uu kaliya qaybta share kadibna halkan waxa hoos kaaga soo bixi doona meel ay ku qoran tahay start at xilliga hadda aad marayso meel ka bilaabanaya adiga meeshaad u baahan tahay inaad la wadaagto saaxiibkaaga istaajinaysaa kadibna halkaas ayaad TikTok saaraysaa kadibna copy link ay leedahay kadib hadii hadda aan fiirno oon kicina bal eega soo noqonayo
waxaad u jeedaan hadda inuu ka bilaabay daqiiqadii annaga martaqaana aan copy link kula sameynay oo halkaas ayuu qofka saaxiibka uga bilaabi doonaa muuqaalka kadibna sidaas ayaa barnaamijkii ama wixii aad ka rabto muuqaalkan saaxiibka ula wadaagi kartaa waxaa sirtan uu kaliya ka faa'iideysan kara dadka isticmaala laptopska ama computerska oo mobilka uma isticmaali kartid haddii aadan isticmaalin browser maahane okay waxaan qoslayaa waxay tahay waxaan ogaa sirtan soo socota oo hadda inii sheegi doono inay tahay mid aad iyo aad inay anfacaysaa mararka qaar waxaa dhacda marka aad YouTube ku dhex jirtid inaad raadiso waxyaabaha macno lahayn waxyaabahaasna aad doonayeen inay dad kale arkaan haddii taleefankaada ay qabtaan haddaba YouTube-ka wuxuu leeyahay wax loo yaqaan mataqaana recommendation wax loo yaqaan haddii aad wax daawatid waxaas wax la mid ah ayuu hadhowto mataqaana qaybta home-kaaga soo dhigi doonaa hadduu qof YouTube-ka furto waxyaaba hore u fiirsi jirtay waxyaaba la mid ah ayuu soo dhigi doonaa adna waxyaabahaas ma jeclid in mataqaana dad kale ka arkaan hadhowto yani wax xumaata ayaa dadka ka fahmayaan si arrintaas uga fogaatid waxaa taabanaysaa wax loo yaqaan qaybta geeska ayaa riixaysaa kadibna waxaa furanaysaa option loo yaqaan turn on incognito wuxuu barnaamijkan ku fududeynayaa haddii aad isticmaasho ayadoo saan ku ah in wax walba laga arkin haddii wax baartid waxaas hadda recommendation gadaal laga keenin sirjiga kama soo muuqanayo marka ha u isticmaalin yani waxyaabaha daawanaysa mararka qaar waxyaabo obina ka dhigin haddii aad rabto waxyaabo mataqaana adigina ku gooni noqdaan inaad daawatid barnaamijkan furo si hadhowto dib asxaabtaada u arkin ama yani dad aad ka cabsanaysid inay arkaan waxyaabaha daawanaysid هذا هو برنامج عجيب حقيقي سرته ugu dambaysa ahna sirta lixaad ee aan kaga hayay maanta YouTube-ka oo aan raba inaan ku soo gabeeyo muuqaalka waxay tahay haddii aad u baahan tahay muuqaal aad daawanaysid inaad qaybta interaha maadaama dadka badan aysan ka helin interaha inaad isku gudbisid ama channel aad caadi u taqaanid oo intiisu aad u dheer yahay oo mar walba ku dhibaya aad jirto waxaa sameynaysaa haddii aad tahay qof isticmaala laptop-ka inaad iska gudbi kartid waxaa sameynaysaa oo kaliya qaybta kore linki aad tagaysaa waxaad linki hortiisa ku qoraysaa calaamadda unsign loo yaqaan waa taas meesha ka muuqata kadibna waxaad qoraysaa start equal ayaa taabanaysaa kadibna inta second u baahanta ayaa meesha ku qoraysaa ogow wax daqiiqada meesha kuma qori kartid oo 2 daqiiqo ma gudbi kartid kaliya wax sekamo ku saabsan ayaa gudbi kartaa haddaba ilaa 60 iyo 1 inta u dhaxaysa ayaa gudbi kartaa antaana waxa leeyahay 30 second oo kale iyo gudbi kadibna waxa leeyahay enter oo kaad soo jeedid muuqaalka wuxuu ka bilaabmay qaybta 30 second ku bilaabmay oo 30 second wixii ku horeey dhan wuu naga soo gudbiyay marka qaabkaas ayaad u isticmaali kartaa waxa rajeynaa inaad sirkaad ku xiis badan ka hesheen okay daawada kuma sidida soo daawatay muuqaalkan waxa rajeynaa oo aan jeclahay inaad ka faa'iideysato fadlan haddaba ani waxaan ka codsanayaa inaad page-ka ku cusubtaa like saartid channel-ka ku cusubtaa subscribe ku samaysid soo kale like saarto muuqaalka shartana ha iloobin waxaas ma wax dadweyne ku murmaan يعني كوين وكما ستي مر لبعض وأنا وعبي دارون له باي باي